السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياري وإذا سلام يا مدل الدنيا دعالة كجوكتان إما كان كسو دوادا فلانقينتي جيمكي حالي aan dheelnay iyo khaladaadkii Arsenal ay samaysay marka koowaad aan ku bilaabay geemkani ma ahayn geem kala saaraya Arsenal iyo Manchester City kaasoo ma aragtay aaminayay kooxda qaadi doonta Premier League waayo Manchester City waxayna tusay levelka ay hadda ay taagan tahay in anaga aan ka dambeeyno intaasoo million miles ayaan gadaal ooga jirnaa levelka ay taagan tahay runtii xalay arrintaana wayna tuseen taasi waa mid ay u baahan tahay Arsenal levelka inay soo gaarto arrinta labaad waxa weeyaan mistake xalay Mikel Arteta uu sameeyay marka ay aad ka hor imaanaysid team sidan oo kale u qiimo badan team sidan oo kale u ciyaaray team heerkan sare taagan in aad ma aragtay maahan attacking aad kala hor imaato marka ay ciyaarayaan Liverpool iyo Manchester City waa aragteen Liverpool 2-6 ay dhaxda ku soo gashaa 3-6 ay dhaxda ku soo gashaa 3-6 laba kamid ah Fabinho gadaal ay u soo dagaa wuxuu wali uu si ilaaliyaa oo protect gareeya saddex difaac ee gadaal dheelayso difaaca meesha taagan ayuu saddex ku noqdaa wuuna ilaaliyaa sidoo kale Rodri markii ay Liverpool ay la ciyaarayaan ama Manchester United ay la ciyaarayaan team marka ayaga aad ula tartamayo ma aragtay ama Bayern oo kale isaga laftirkiisa gadaal ay u soo dagaa wuxuu ilaaliyaa labada difaac ee gadaal taagan ama saddexdooda mararka qaar Arnold ayaa lagu daraa difaacyada saddexaad marka Arteta xalay arinta kama soo fikirin sida asoo la ciyaaray Brighton ama Newcastle ay wuxuu soo badsaday attacking uu soo badsaday Xhaka free laga dhigay waa la diray Partey kaliya dhaxda lagu reebay Holding ma aha nin qaban karo Haaland nin lagu aamin karo qaban karo ma ahayn runtii xalay tactiga khaladka uu sameeyay waxay ahayd wuxuu islahaa Haaland qabatid Haaland hala ilaaliyo Haalandna sheekadii uu nagu fahmay waaba ninka soo degay xalay sida aragtay bunuunta khadka dhexe u controlay waa Haaland oo xalay laba nin ka tagay oo bunuun baas qurux badan bixinay Haaland oo xalay intuu dad ka tago darba tuurahay Haaland oo xalay ciyaaryahanka kaliya ee ma aragtay asaga iyo De Bruyne horay intiina loo soo dhigay Arsenal horay iyo gadaalba ka maray wareeriyay ay ahayn marka xalay Arteta aad ay ugu khaldanaa inuu ma aragtay oo halka uu raggan difaac ka gali lahaa oo laba sigiso aad adag uu ku soo gali lahaa Partey ama Jorginho ama Partey iyo Xhaka oo gadaal difaac ay joogayaan khadkooda dhex aysan soo dhaafin inuu la ciyaaray ahayd arinta saddexaad oo Arsenal xalay aad oo waratay waxa ahayn midfield-ka khadkeeda dhaxo idil Xhaka iyo Partey iyo Odegaard saddexdooda jaabka lagu ritay teamna hadaad aragto waa khadka dhexe khadkaada dhexe haduu fiican yahay difaacaada si walba ay xun yihiin way fiican yihiin Manchester City hadda waxa la oran karaa Arsenal bay ka difaac fiican Diaz ba wuxuu ka fiican yahay Gabriel Magalhaes kama fiicno Rob Holding inkastoo Stone uusan gaarin waa ciyaaryahan aad u fiican oo ma aragtay wax difaacan karo laakiin maxay nooga fiicnaayeen waxay dhaxda ku haystaan Gundogan De Bruyne bay dhaxda ku haystaan Bernardo Silva ay ku haystaan laakiin anaga raga ma haysano waana mid ay ugu baahan tahay Arsenal in ay ma aragtay pressure marka ay jirto oo Brunta lagu soo fiijisanayo oo teamka uu adigu ku saaran yahay waa inay haysataa rag midfield oo pressure la dhaqmi karo sida ma aragtay Caicedo iyo ciyaaryahanka Declan Rice raggaas oo kale waa inay doontaan Arsenal midfield-kan hadda taagan rag pressure la deal gareyn kara ma aha meeshan Champions League oo socota other Premier League lama taagnaanayo Brighton iyo intaad soo martay hal mar Manchester City iyo Liverpool iyo laba game kale kama hor imaanayaan oo kala duwan waxaad ka hor imaanaysaa Bayern Real Madrid PSG Barcelona ayaa ka hor imaanaysaa marka hadii aadan lahayn midfield pressure marka ay saaran tahay la dhaqmi karo oo maartay pressure intuu ciyaarta u dejiyo banoonta ka reebso banoonta ka hayo oo maartay teamka ay arkaan in raggan lagu soo degdegi karin aysan ahayn inay ka baqaan la rabaa laakiin rag markii oo Partey xalay aad ma oo leeyahay wallahi Odegaard iyo Xhaka waxay sameeyeen waxaa ku dhaamay banoonta difaaca Gabriel Magalhaes iyo Zinchenko waxay isku dayeen banoonta inay hayaan raggan bal ku soo ordahay dusha ka saaran inay banoonta ka ilaaliyaan laakiin midfield-ka khadku ka baxay xalay waxa arkayseen Gabriel Martinelli oo banoon taabanay geeskiisa dhaxdiba waxa waayo banoonta ma bixin karaan ba rag ayaga cabsanaya waxaad moodaa in raggan waa rag idan ka waaweyn waa rag awood sheeganayo waa rag si kala cabsi Arsenal waxay u baahan tahay runtii si degdeg ah in season-ka markuu sida u dhamaado ay midfield-kan khadkan dhexe ay badisho sidoo kale Gabriel Jesus
isna ma ahan striker Arsenal ay ku tashan karto, ma ahan striker dhameystiran oo Haaland oo kale ah. runtii Haaland xalay Gabriel Jesus sida banoon loo ciyaaro ayuu tusay. Markii aad nin striker aad tahay markood waa inaad nin baahan tahay, waa inaad tahay nin banoon u baahan, nin inuu gool xiro u baahan, nin wax walba inuu dhuunta dhiga rabo, sidii Ronaldo kale nin selfish inaad tahay, banoon walbo inuu asaga dhaliyo rabo. Sidoo kale asagana runtii xalay aad ayuu ugu dhumay banoonta, garbihiina way shaqeyn waayeen, waxaana ugu wacan waa khadka dhexe oo aan ahayn rag cadaadis kala dhaqmi karo. sidoo kale teamkan sida uu season kan ba asagoo la filanaynin uu u noqday team tartamahayo inuu kaab qaado uu rabo, waliba kaabkii ugu weynay liiga loo tartamahay mar kalena way kici doonaan oo teamkan way tartami doonaan. hase ahaatee inta ka hor waa in dadaal lala imaadaa, waa in teamka khaladaadka uu sameynayo iyo wuxuu u baahan yahay intaba la buuxiya. khadka dhexe ayaa ugu muhiimsan in la dhiso, in striker dhameystiran la keeno ayaa ku xigta. waa in teamka mentality uu lahaadaa, waa teamka inuu garanayo iyo coachkaba kooxda ay la ciyaarayaan miisaanka ay leedahay. marka aad team yar la ciyaarayso waa attacking waa kusoo geli kartaa, laakiin marka aad team Liverpool oo kale, City oo kale aad la dheelaysid inaad isdhigatid maaha, waa inaad difaac ku aruurtaa, ragga horena ay shaqeeyaan. Manchester City ayagoo xalay inay naga awood badan yihiin yaa raggiyo idil gadaal intiina loo dhigtay ciyaarta qaybteeda ugu hore ayaa waxaana lagu soo sii daayay Kevin De Bruyne, Haaland iyo Gundogan. markayna arkeen inaa midfield anaga pressure ay qaadi lahayn kulli way soo wada baxeen, macal Stones aan ugu soo baxay. marka coachka arrintaana waa inuu qiimeeyo oo la socdo oo horyaalada iyo tiimamka sida u kala weyn yihiin inuu u qadariyo, mid walbana tactic gooni uu leeyahay. Guardiola oo kale waa inuu yahay Klopp oo kale uu yahay coachka. taasina xalay waa ayna martay asaatee runtii aniga kama xumi in liigi uu naga tagay oo liigi sida uu nagu dhaafay. liigan marka hore waa aniga ugu mataligalin inaan qaado, niyadeedu kuma jirin weligeed ma dhicin Premier League team sidan u yar inuu Premier League uu ku guuleysto, team average-kiisa uu yahay ciyaaryahanadiisa 23 ma dhicin, weligeed ma dhicin. xalay commentary-ga aan ka maqlahay wax dhici karana ma ahan, ayuu ciyaaryahanada waaweyn oo experience ku hortaagan yihiin inaa jaaba inta meesha la soo gaso Premier League ku qaado, wax dhici kara maahan. laakiin arrintan aad uga xumaada waxay runtii 7 sano in aad lagu garaaco home iyo away, taas waa ceeb runtii. taa ayaan aad uga xumaaday inuu koobkan idhaafo ama koobkan la iga qaado. aniga wax dhibaato ah kama qabo, waayo uguma talagelinba Champions League ciyaarteeda hadda u soo baxo waa fiicanahay. waxaan lahaa Champions League u soo baxid isdhisidoo teamkan team hadda dhisayso ahaa, teamkanna waa aaminsanahay sidii season kanba oo uu ahaa team ay dadka dhan xitaa aysan u saadaalinaynin inuu top 5 inuu Champions League u soo bixi doono, ay ugu tartameen koobka Premier League, ay u tuseen inay yihiin team tartami karo. ayaa haddana haddii dib loo sii dhiso ay waxay noqon karaan team tartami karo oo runtii laga baqahayo oo leeyahay waa team soo kacay oo 10 sano hadda soo socota tartami doon. teamkana Arsenal aniga sida aan ka rabo sida weeyaan. marka akhyaaray wax walba way dhacaan, ase ahaatee in 7 sano kaliya la iska ka marmaro, in 7 sano kaliya lagu marmaro ma fiicno. teamkana meelaha uu week uu ka yahay ka jilicsan yahay way caddahay. Saliba hadduu soo kaco Rob Holding uu iska baxayaa, laakiin waa inaa bedel fiican uu ku taagan yahay. Saliba nin bedel u ah, waa inaad Saliba oo kale aad soo heshaa, waa inaad khadkaada ugu yaraan 3 nin aad pressure la dhaqmi karo aad keensataa, waa inuu ku joogo nin saaka bedel u ah. Reece Nelson xalay markuu imaaday waa arkaysan suuqa ciyaarta u bedelay ciyaaryahanka, waa in la siiyaa contract cusub. sidoo kale Trossardna waa inuu noqdaa ciyaaryahan mar walba Arsenal u bilaabo. waa habeen kale oo gadaal laga keenay, haddana as tacaawin uu helay. ciyaaryahankaas oo kale maahan ciyaaryahanka binaanka ku haysan lahayd. coachkana Arteta coach fiican uu yahay runtii, asagana waa inuu akhristaa oo wax badan uu fahmaa, ciyaaryahanadiisana uu kala gartaa. kumana sii fogaanayo Arsenal fans yaa la niyad jabin. teamkan waa sidoo u kacay, dib uma noqon doono, weligii uu tartami doonaa, horay ugu socon doonaa. waa intaas oo coachka khaladaadkiisa iska ilaaliyo, khadka dhaxana rag pressure la tacaali karana loo keenay. haddana waxaa idinkaga tagayaa sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.